الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي سيتهين عافمادكين حالذين كورما حرجينا إنا عافماد خبتين إن شاء الله تعالى. محاكو دارين هاي سودهنا محاكو داري هاي سودهنا حالة ديدا وجيدين إلى ربي ورحمن وأموره سخر. إلى ربي ورحمن وإنت حنوسا عافماد سي إلى ربي ساك ألسيا وحا أكلهي إقامدي ساك أكلهي الحمد لله. ماشي إقامة بوخة كدعي waa la isdagaalay masaaridii iyo suudaantii isdagaaleen. Anigii waxaan islahaa dadkii madowga ahaa la safo, bal maxaa ii geeyey dadkii madowga maxaa ii geeyey ma dadka iga yaqaaniin. asxaabay waa ii jeediin xaaladeyda, waa ii jeediin maanta jawaahir idinka idin baahan tahay, ilaahay subxaanahu watacaala ay u baahan tahay, idinka idin baahan tahay. xaaladda waa ujeediin, anigoo ma ujeediin maanta naag iska dhigay iska ooy farax xitaa gadaal muu celin karo, iska cilaamayste. show cilaankiyaa laygu cayuuma umalaynaa, cilaankiyaa laygu cayuumay. yaa rabbi yaa raxmaan yaa raxiim. asxaabi maanta ducaal idinkaaga baahan yahay. gacan ma noolo meeshaan wax yar iga soo gaaray, meeshaas ujeedii aan tilmaamayo wax yar iga soo gaaray. maanta maseera ay qabtay, maseer dartiisa u galay dagaalkaas. waxaa dhacday gabar suudaaniyad maxaa iradaasi nin masaari isdagaaleen. ninkii masaariga markay isdagaaleen waxaa meesha fadhiyay suuriyaan iyo waxaa fadhiyeen iyo masaari iyo dad badanaa meesha fadhiyay iyo suudaana meesha fadhisay. 5 qof oo Soomaalina meesha way fadhisay. markaasaa waxaa dhacday askara loo wacay gabadha suudaanta iyo ninka masaarida markay isdagaaleen. gabadha suudaaniga nin suudaana u soo hiiliyay, ninka masaarigan tabcan nin masaariya u soo hiiliyay. askaraa la keenay. askartii markii la keenay askartii waxay dhaheen allahu mustacaan, dadka masaaridii way isku marqaati fureen. waxay dhaheen kuwan iyo maxay radaasi naagtan iyo ninkan dadkan oo meesha fadhiyo kuwaana marqaati ka wayna caayeen, wayna shatamiyeen. dhaheen shatam yani caayteen iyo waxa waaye. markaasaa waxay dhahday waxaa marqaati ku furay masaaridii iyo suuriyaankii meesha fadhiyay, dadkii cadcadaa marqaati ku fureen. annaga hadda dadkii madmadooba suudaanta oo dhanna hal meel ay isku noqdeen, ayagana waa isku marqaati fureen. anigina waxaan ku dhexgalay dadkii suudaan intaa iska dhigaayo oo midibkan aan u danaaninayo. المهم وجدين حالة وجدين ماشي أسكرا إماتي. الحمد لله أنا ماشي ما بلي وذن بدتك ولا وضي أو حال الله كونا إذا داوعن إذا وحجاري لما وضع على هاي. الحمد لله لما وضع ذي وحسبتال إجي مالهن وح دكتور إجي إلهي أبورت مالهن حالة دي ويجدين قعنتي وكاسا سو جاري وحيرا سو جاري meeshaan ujeediin waxyara iga soo gaaray. asxaabay maanta ma aqaana xaaladeyda, bal ducaa la idinka rabaa maanta. walaashiina jawaahir duco idinka rabtaa, duco idinkaaga baahanahay, wax kale idinkaaga baahanahay ma jiro. bal ii soo duceeya. dadkan dhiiga i qaaday runtii. dadka suudaanta maasha allah waa dad isku marqaati kaco. qof marka qofkooda wax soo gaaro ama wax laga haleeyo ayagoo dhan way isku istaagayaan. annaga laakiin Soomaali haddaan nahay hal qof haddii meesha lagu haysto wallaahi ma fiirino, xaraam waayo waxaasoo kale. dadkeena dhiig ma lahan, ayagu unbay isku qabween yihiin. waan ka xanaaqaa wallaahi waxaasoo kale. dhiigga igu kacay, maxaa qaban karaa? qof keligeeda ah maxaa qaban karaa? marka suudaan saas isugu jeesatayo saqiirkooda iyo gaalkooda iyo muslinkooda weliba ay isugu soo hiiliyeen, isugu soo marqaati kaceen. kaliya ma ahan kuwa muslimiinta. gabadha wax laga gaarsiiyey waa gabar xijaabneed, laakiin kuwa meesha fadhiyay oo xijaabneen oo muslimiinta ahayn dhan way soo wada istaageen calshaan gabadhaas darteeda.
ayaga dhanna way isku marqaati kaceen gabadhaas haddii la wadayo annagana hanala waday dhahayaan yacni waa qiira iqaadi runtii annaga dadkeena marka qof meel lagu haysto sidaas ma ahan sidoo kale maalin dhaweyd wiil oo soomaali waxaa isugu tageena lahay masaaridii markay isugu tageen wiilka soomaaliga waxaa usoo hiiliyey intaasoo qof oo soomaaliya joogtay meesha wiilka soomaaliga waxaa usoo hiiliyey suudaaniyiina usoo hiiliyeen markaasaa kuwa asxaabnahoo suudaania intay isoo waceen jawaahir waxay dhaheen dadkiina dad ma ahan wiilkii oo walaalkaaga ahaa wiilkii marka hadda ka hor ani waxaan dhahay wiilkan walaalkayga waaye iyo ogaada wiilkii walaalkaaga ahaa heblow ahaa ilaan walaalkayga ila dhasha maayo waaba hilmaamniyadeeda wuu ka baxay wiilkii allah mustacaan wiilkii walaalkaaga ahaa igu celcelinooyin wiilkii walaalkaaga ahaa markii damba soo xasuusta magaciisa markay ii sheegeen markaasaa waxaa dhahay haa maxaa ku dhacay wiilka walaalkaaga waa la garaacay maanta garaacid iyo xabsiyaa laiskugu daray anaga ahaan lahayn waa la dili lahaayo waa kaasaa maxaa ku dhacay hadda aawiadha hadda xabsigoo ku jira ay dhaheen oo xataa cidihiisa xitaa ma ogen inuu xabsi ku jiro markaasaa ciddooda nambarkooda raadiyey allah mustacaan u sheegay waxaan dhahay wiilkiina ogaada inuu xabsi ku jiro waana la dilay marka sidii ay ku raadiyeen marka dadkaasoo kalea iska jooga hadda ka horna waa idin sheegay wiil soomaali ah in 3 wiil oo suudaanta oo madowga ah oo gaalada ah dhalo gacanta ugu jaaxeen maxay radaa 3 wiil kan ugu weyn 17 jir uu yahay oo markay ugu yar tahay 25 wiil Soomaaliyeedna meesha joogaan oo wax u hiileeyay waay ma anfacaysa marka dadkeena Soomaalida dhiig ma lahan waa dad ayagu isku maqan waa dad ayagu isku qabweyn waa dad ayaga ya rabbi ودad mar walba ayaga isku maqan waa dad aan naftooda iyo walaalkooda u hiilinayeen marka qof ajnabi ay gaarto waxay noqonayaan kuwa oo mar walba isku soo jeeday noqonayaan marka sidaas ma Soomaaliyeed dhiig hal isku yeelo dhiig isku yeela dhiig maxaa idinka qaaday dadkaan waa dad dhiig leh dadkaan madow waa isku wada hiiliyaan laakiin anaga waxa isku hiilina ma lahan waa isnaqaanaa dadkeena Masar joogo ogtihiin marka oo UN ka safka shubaakada ama dariishada la galaayo Soomaalida waa laga saaraa meesha oo 2 naag ama 3 naag meesha ka saaranayso ayagoo intaas oo qof ku socdo qof Soomaali hadoo yahay way cunayaan marka maxay u taraysaa marka wacyigelin ha idin noqoto dadkaan wallahi mar walba dad isku duuban dadkaan waa dad mar walba naftooda iyo maxay raadaasi kan walaalkooda isku difaaca waa marka Soomaaliya sidaas ma ahan hadda daraad gabar qof ay soo sheegaysay ما قان ويل ما أها جور ما أها مشي كرو حافظ أو نقفك حوجا إن ويل صومالي أو لوجد دلي أو مصاري سوق تكتي إن ضد كان مركب الدجال إن قطع ويسكوه هيليان صومالي أيجا لابتوب لقى قاطع لعق لقى قاطع تلفون لقى قاطع وحول بأيجا ونقول وحول إن أيجا ونقول إلى ولا أركي ما يسكوه هيليان ما يسقرب سيان قفل بوعب سنة أنت أو محير هذا أسي reer hebel iyo isku soo xareysteen hadana waxa isku qabaneen wallahi ma anfacayso waa sababta aan wadan walbo aan tago aan dadka markaas aan isleeyahay xoogay leeyihiin aan asxaab ugu dhigto laana Soomaalida asxaabka dhigtay qof hiil markii la dhaho qofku hiilinaysa malaha hadda ka hor ninka Suudaanka markuu igaraacay waa dadka iga celiyaa waa Soomaalisa uu wacanaay waa ku daalay marka kale alxamdulillah ilaahay qof luuqad fahamsiya ahay masaaridii ay soo hiilisay masaaridii wacday masaaridii u hanjabtay allahay hadii oo maxay raadaasi dad oo askar ah waay dadka u sheegay u dacwooday waxay dhaheen hadii gabadhaas mar dambe oo ka soo sheegato iska jira Allah xabsiga lagu gelina alxamdulillah waa iga haray hadii qof Soomaali intaasoo qof oo Soomaali ah u sheegay wax waa leega qaban waay marka Soomaalida mar walba waa kuwa ayaga isku nugul Soomaalida mar walba waa kuwa oo ayaga oo maxay raadaasi isdila kuwa ayaga isqaraaca kuwa ayaga isku maqan kuwa ayaga isku qabween kuwa ayaga isku xoog leh ma anfacayso marka adduunku waa isku duuban yahay qof kale jinsiyad kale ee markii oo Allah musta'an isdagaashin kan kale hadoo madow yahay hadaa jinsiyadiisa la soo safana هذا وحى بدن كان مصر وحى كنول نيجيريان إلهي حالكود أوجيها كنول قف نيجيريان قف عد أبتوضة مكو جراعي كر وإحنا مكو جيلك قبل هذا وعدد محل رضاسي وحول بيسميان ودن كان كسميان نيجيريان كأنت بدن وال أوجيها وحى قبطان إيو مرك الله مستعان
ayagii saas ay tahay qofkii saas u taabto gabdhahooda ma saas u fiiriyo laba caday ka kala dhigayaan sacuudi aan ku soo arko Nigerian agtiisa qof Nigerian agtiisa ee qof cad ama Hindi ha ahaado ama Bangladesh ha ahaado ama Pakistan ha ahaado ama Sacuudi ha ahaado ama Masaari ha ahaado qof oo Nigerian agtiisa qof madow hadaa tahay wax ma lagu sameyn karo marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha noo saqiro Ilaahay ha na caafiyo Ilaahay inta xanuunsan ha caafiyo isoo duceeyo insha Allah khayr iyo caafimaad muddooyinkii dambeeyey ay shirkadaha caalamiga ah ee bulshada Soomaalida ay furayeen maalgashiga shirkadahooda ayaa waxaa shirkadahaasi caalamiga ah ee maalgashiga u furay bulshada Soomaalida waxaa ka mid ah shirkadda afraad ee ugu weyn dalka Mareykanka kaalinta 11aad kaga jirta shirkadaha caalamiga ah waana shirkadda Forever Living Product shirkadda Forever Living Product waa shirkad caalami ah oo 140 waddan xafiis ku leh wadamadaas oo ku jirta Soomaaliya shirkaddan waa shirkad dhaqaale aad u yar aad ku maalgashan karto waxa ugu yar ee aad shirkadda ku maalgashan karto ayaa lacag u dhiganta $70 ilaa $480 oo doolarka Mareykanka si aad uga mid noqoto maalgashadayaasha shirkaddan waxa aad uga faa'iideysan kara aabayaasha iyo hooyooyinka biilasha ay ku badan yihiin haddaba daawada ma tahay aabe ama hooyo ku nool North America oo dhibsatay shaqooyinka warehouse ee xamaaliga biilashuna ay kugu badan yihiin ma ku nooshahay Afrika ma tahay qof ku nool qaaradda Yurub oo dhaqaalihiisa soo gala iyo dhaqaalaha ka baxay kala badan yihiin waxaa ku anfici doonta shirkadda Forever Living Product ma ku nooshahay guud ahaan qaaradda Afrika ma ka cabanaysaa shaqo la'aan ku soo food saartay waxaa maalgashi aad dhaqaale ku samayn doonto ku haysa shirkadda Forever Living Product adigoo lacagaada yar shirkaddan ku maalgashanaya lacagtaas oo dhiganta $70 ilaa $480 shirkadda Forever Living Product si aad isaga diiwaan geliso waa inaad marka hore tahay qof aamin ah sumcadna ku dhexleh bulshadiisa Soomaalida waa inaad tahay qof aan ka yarayn da'da 18 sano waana inaad taqaan sida loo suuqgeeyo badeecooyinka shirkaddan maadaama shirkaddan ay tahay shirkad badeecooyinkeeda caalamka oo dhan laga isticmaalo haddii aad tahay qof xeel dheer sida loo suuqgeeyo oo yaqaana khibradaha sida loo suuqgeeyo mashaariicda iyo weliba productiga shirkadaha fadlan waxaad tahay qofkii loo baahnaa haddii aad tahay qof ku xeel dheer sida loo suuqgeeyo wax soo saarka alaabooyinka waxaad tahay qofkii ku habboonaa ay shirkaddu u baahnayd ee maalgashan lahaa haddaba daawada si aad isaga xaadirso una maalgashato shirkaddan fadlan wac telefoonada WhatsApp-ka ee shaashadda ku qoran si aad u hesho macluumaad dheeraad ah